أوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الأحبة قال تعالى في محكم تنزيله يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى وحو كتابك سكت المامية غير نبي آدم وهدو إيدي مادان رسل xaggayga ka socota oo idinka mid ah oo idinka warramana aayaadkayga baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala faman ittaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwii ilaahay ka cabsada ee qaata waxay rusushu la timi oo wa aslax suubanaado hagaagsanaado acmaashiisa fiicnaysiiya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun tiiraanyo iyo baqatoona korkooda ma ahaanin baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala insaanka mashkiladaha ugu badan ee dunida ku qabsada waxaa ka mid ah alkhawf waalxusn ilaahayna subxaanahu wa tacaala aayaad 14 gaadhaya buu ku tilmaamayaa waxyaabaha khawfka iyo xusniga bini aadamka ka kaxeeya waxay culimmadu yidhaahdaan isu imaatinka bini aadamka iyo maamuladooda taariikhda bashariga bay yidhahdaan waa macdala waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee taariikhda bini aadamka soo mara fii kulli zamaan wa makaan waqti kasta iyo meel kastaba waayo aadanuhu qumanidu waxay ku jirtaa ilaahay kitaabkiisa markuu ka tago laba mid unbuu maraa bay leeyihin ima طugyaan aw alfawda laa amna walaa istiqraar deganaanshiyo iyo nabadgelya ma dhacda bini aadamku haddii aanu raacin ilaahay kitaabkiisa labada gebi midunbuu ka dhacaa mid ah fawda dadku inaanay yeelanin kala dambayn oo fawda ay noqoto fawdaduna dil iyo dhac iyo boob ayay sababtaa aw iطugyaan ama dictatorship oo isna dhanka kale ah kuwo kibray oo qooqay inay dadka maamulaan oo dabeetana dadku uu xorriyadooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda waayo oo iyana baqa iyo cabsi kale ku abuurta waxay culimmadu yidhahdaan labada dhanba hadday fawdo tahayna waa baqa iyo cabsi iyo cadamulistiqraar degnaanshiye la-aan hadday dictatorshipka iyo طugyaanka noqotona iyaduna waa cabsi iyo deganaanshiye la-aan idan bulsho ama ummadi waxay heshaa alamni الnafsi waاlijtimaaci naf ahaan iyo bulsho ahaanba waxay nabad noqotaa wuxuu qofkiisu nabadda dareemaa qof waliba marka uu raaco ilaahay subxaanahu wa tacaala ariiqiisaasi
deganaanshiyaha iyo nabaddu waxay culimmadu ku tilmaamaan inuu yahay sulamu الtaqadumi wاlxadaara horumarka bini aadamka iyo xadaaradiisa sallaanka loo fuulo inuu yahay alidiraab wاlkhawfna dadkoo degi waayo xasilooni la waayo nabad iyo amni la waayaana waa طariiqu takhalluf waa jidka dib u dhaca ee noolaha uu maro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamayaa ugu horeyn nabad iyo amniga in ilaahay kitaabkiisa laga helo faman ittaqaa waaslax falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun faman tabica hudaaya falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina qaluu rabbuna allahu huma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun xawaalay 14 aaya baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa haddii kitaabkiisa lagu qumanaado haddii diintiisa la raaco haddii rusushiisa la rumeeyo haddii jidka ilaahay uu dadka u soo dejiyay la raaco haddii hanuunka aniga iga yimi aad raacdaan baa ilaahay leeyahy falaa khawfun calaykum walaa antum taxzanuun weeyaan baqa korkiinna ahaan maayo murugana korkiinna ahaan mayso bale ilaahay subxaanahu wa tacaala nabadiyo amnigu si ay aadanaha faa'iido ugu leeyihiin jannadiisa markuu ka warramayo wuxuu ku tilmaamay inay tahay daarta nabadgelyada oo aafaadka dunida ka dhacoo dhan in lagaga nabadgelayo lahum daaru salaami cinda rabbihim baa ilaahay ku tilmaamaya daar nabadeed bay alle agtiisa ku leeyihin ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa wuxuu dadka ugu yeedhayaa inay daartaa nabadeed tahay wallahu yadcuu ilaa daari salaami wayahdi man yashaau ilaa siraatin mustaqiim bale ilaahay islaamnimadaba wuxuu ku tilmaamay waddada nabadda inay tahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdi bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam jidka nabaddaa ilaahay ku hanuuniya ciddii raacda kitaabkiisa wayukhrijuhum min adulumaati ila annuuri biidnihi wayahdihim ila siraatin mustaqiim amnigu ayuha alaxiba waa nicma kow waxaa lagu helaa ilaahay kitaabkiisoo la raaco hadday dadku diinta alle si qumman u raacaan kow waxay helaan iطmi'naan qalbiya amni nafsiya naf ahaan bay u degaan naftoodaa xasisha warwaryo tiiraan iyo muruga kuma dhacdo meeshuu u socdaa buu garanaya xagga rabbi inuu ku socdo xaggu ka yimuu og yahay meesha dunidu ku dambaynaysuu garanayaa ilaahay in layswada hortaagayuu garanaya saa ogeed baa ilaahay wuxuu leeyahy وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين إلهي وحينات المامية ألا وحيدين يبوهي كوا إيمان لقها ليدين كمدة الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إيمان يعمل صالحة عدي لقها له إلهي وحوب بلن قاضي ليستخلفنهم في الأرض dhulkaa ilaahay khilaafadii saydiin dhiibaya dhulkuu idin dhaxal siin sidii kuwii idinka idinka horreeyayba loo dhaxal siiyey walayumakkinanna lahum diinahum alladii irtadaa lahum diintooda baa ilaahay subxaanahu wa tacaala makansiin doona oo taquwada leh korraysan noqon doonta walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna baqahooda dabadeedna ilaahay subxaanahu wa tacaala nabad buu ugu bedeli doonaa shardigu waa yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waa adduunka marka la joogo ilaahay wuxuu leeyahy nabadda adduun baan idinku siinaya aayaadkani waxay ka warramayaan adduunyo aakhirana wahum min fazacin yowmaidin aaminuun baa ilaahay leeyahy aakhirana way badbaadayaan oo fasac iyo dhibta ka jirta labada goorba badbaaday leeyihin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nabaddu iyo deganaanshiyaha siyaasadeed waa gaaya uu islaamku u ictibaariyay lidaatihi inuu gaayaadka la raadcaynayo ka mid yahay sidaa ogeed baa qur-aanka aayaad badani waxay ku tilmaamayaan qofku inuu nabad diintiisa u helo inuu nabad u helo naftiisa inuu nabad u helo maalkiisa inuu nabad u helo cirdigiisa iyo nasligiisa iyo sharaftidiisa adaruuraat alkhamsad ay culammadu ka warramaan waa mas'ala inuu qofku nabad intaasi oo dhan u heli karo si uu rabbi subxaanahu wa tacaala kaligii u caabudo
waxaana ilaahay qur-aanka aayaad badan ku tilmaamaya waxa sharaa'icda loo soo dejiyeyba inay tahay nabaddaa in la helo nabaddaa in la helo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sharciga u soo dejiyey nabiyullaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa adduunka inaan waxbaba kaa maqnayn haddaad saddex shay isla hesho wax aadanuhu raadiyaa adduunka waa saddexdan buu nebigu ku tilmaamayaa man asbaxa minkum aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiizat lahu ddunyaa bixadaafiiriha nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam ninka waa bariista isagoo ah mucaafan aaminan fii sirbih kooxdiisa ama ehelkiisa ama bulshadiisa ku nabad qaba o aan cidna ka baqaynin nabad qaba mucaafan fii jasadih jidh ahaanna u caafimaad qaba cindahu quutu yowmi maantaa wuxuu cunana haysto ninka saddexdaasi isugu kulanto inuu tolkii iyo dadkiisa la joogo ku nabad qabo oo aanu qaxoonti meel daran ku ahayn ama kiisa ku nabad waayin ee uu ku nabad qabo dadkiisa isagoo la jooga aamin fii sirbi waxaa kaloo la yidhi jidhkiisuna uu caafimaad qabo oo amraadda iyo waxaasi aanay haynin waxaa kaloo nebigu ku tilmaamay maantaa wuxuu cunana haystaa adduunku waa in la cuno un kama bato saddexdan shay kama bato adduunka waxa bini aadamku raadiyaa si awgeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamayaa kaasi adduunyadaa ku soo ururtay adduun dhammaantiiba kaa wuu hayaa buu nebigu tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu u gallad sheeganayay quraysh ilaahay wuxuu leeyay falyacbuduu rabba hada albeyt aladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf ha caabudaan rabbiga baytulxaraamka leh ee gaajana ka quudiyey baqana ka nabadgeliyey haddaba ayuha alaxiba amnigaasi qur-aanku uu ka warramayo nabadgelyadaasi asbaab iyo muqawamaad bay leeyihin hadduu dadku la yimaadana uu sugmayo oo uu jirayo hadduu dadku la iman waayana aan la helaynin ee labada fawdo midun uu dhacayo imaa inuu fawdada dictatorka u dhaco oo cid ku amarku taaglaysoo tunto sida caalamulislaami uu u badan yahay ama inuu xagga fawdada u dhaco sida qaybo badan oo caalamulislaami ay ka tirsan ay yihiin waa labada daraf oo labaduba cadamu lamniya labaduba khawf iyo cadamu istiqraaru yaallo nabad iyo deganaanshiya labadaba aanu midna oolin si awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa kow waxa deganaanshiya keena waa aliimaanu billah aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illahi alaa bidikri illahi tatma'inu lquluub wakayfa akhaafu ma ashraktum ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إلهي وحكت المام يكون نبض هيستا النفتو دا آني ورور دينات قبن هانون سنة جدك صحن قاضي وكو إلهي الربيع سبحانه وتعالى جدكيس هيا هذا إنه إسلام نمدنا نبو قاضنه وحين هلينا أمن نفسية نفهان إنه حصلونا إنه وحين هلينا أمن صحية قضائية نقالها إنه دقنا إنه حصلانه وحين هلينا أمن أخلاقية وحين هلينا أمن فكرية waxaynu helaynaa bini aadamku nabadda uu u baahanyay dhammaanteedoo meel kastaba gasha cirdigaaga iyo maalkaaga iyo naftaada iyo diinkaaguba waa nabadgelayaan amaa haddaynu jidka alle ka weecanno oo qaadi weyno labada darafee kale midun baynu ku dhacaynaa ama darafkaa fawdadaynu taagnaanaynaa ama darafkaasi dictatorka baynu taagnaanaynaa labadanna bini aadamku inta badan wuu u kala tallaabaa mar hadduu xaqa garan waayo ama fawdu ku dhacayo wuu dawakhaa markuu hadhow wareerana wuxuu aqbalaa mid dictator inuu qabsado wuxuu idhaha war tan wax waliba waa dhaamaane aan marun ka baxno ka kale markuu qabsada nafta isugu keenana waxay idhahdaan kan wax waliba waa dhaamaane aan ku boobno marka labada dhan midunbuu taagan yahay
se labadaba waxa lagaga badbaadaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala tiisa la raaco saa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina farayaa inaynu ilaahay diintiisa qaadanno kow oo iimaan laynaga hela iimaankaa asal u ah nabadee laba inaynu yeello alamru bilmacruufi wannahyi cani lmunkar xumahana iska reebno xuma iska reebku waxa weeyaan wixii masaalixa ummaddu aanay ku jirin adduunya aakhiro toona in dadka laga celiyo wixii dadka adduunkoodii iyo aakhiradooduba ay ugu jirtana in dadka la faro saa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiidka saxiixa ku tilmaamayaa intuu seexdo kacay buu wuxuu nebigu leeyahay laa ilaaha ila allah weylun lilcarab min sharin qad ikhtarab carab halaag baa u sugnaaday balaayaa soo dhowaatay buu nebigu tilmaamay yaajuuj iyo wamaajuuj baa meeshoodii wax laga dumiyey markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam in mashaakil iman iyo fitan iyo imtixaan buu tilmaamay haweenkii nebiga mid ka mid ah waxay ku tidhi afa nuhlaku wa fiina saalixuun oo miyaana la halaagayaa miyaanu halaagsamaynaa iyadoo dadka saalixiintii ay nagu jiraan dad wanaagsan iyadoo joogaan miyaan halaagsamaynaa qaala nacam idaa kahura alkhabath buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haa hadday inta xumi badato hadday bulshadu inta xun qaban weydo oo sii dayso dabcan waa halaagsamaysaan baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala nebiguna calayhi salaatu wasalaam kaas buu adkaynaya maanta waxaa badan kahra alghawaa'iyiina waalmughafiliin dadka xumaha ugu yeedhaya dadka xumaha ugu yeedhaya mushkiladda waxaad ka eegtaayoo keliya social mediahan bini aadamku ay dhegaystaan ama dadku dhegaysto social media waxa laga soo afuufayo bale soomaalidu waa dad dhibtoodu ay ka gedisantay dadka kale social media haddaad eegto dadka ugu badan ee la dhegaystaa waa intan waalan ummad dadkeeda waa la dhegaysataa ma jirto ha soomaali ahayni dad waalan oo lagu odhanayo wuu waalan yahay ayaa haddana wuxuu yahay dadka loogu dhegaysi badan yahe la dhegaysanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa amni haddaynu rabno inaynu ilaahay raacno kow inaynu caqiido saliima qabsanno xejisanno laba inaynu alamru bilmacruufi wannahyu cani lmunkar samayno saddex inaynu nimcadaynu haysanno markaasi ku shukri noqno waid taadana rabbukum lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله إلهي وحو تصالي إنوغو تلمامي مقالا نبد قبتي ودقني وأرزاق ديدو مالك استوغي منيسي لكن إلهي نمعدي سكو كفر دي فأذاق الله لباس الجوع والخوف وإلهي سبحانه وتعالى ددن سيي huga cabsida iyo gaajada hugooda rabbi dhadhansiiyey walaqad jaa'ahum rasuulu minhum fakadabuuhu faakhadahum alcadaabu wahum daalimuun ayuha alaxiba waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo sharcigu inoo tilmaamay oo haddaynu ilaahay diintiisaasi si dhaba u qaadanno oo waxay sheegaysa yeello waa sida qura aynu nabad ku heli karno baryo galbeetoona nabad ma soo wadaan jaar iyo kuwa kaa fogitoona kuuma soo wadaan dunida ayna soo gaadhiyo duni ku soo gaadhayso adiga ku danaynaysaa ma jiro adna ma tihid ilmo caruura oo wasiyo u baahan iyo cid gacanta qabata caruurtaa la yidhaahdaa caqligooda kuma fille sharcigu wuxuu yidhi cidi ha ka mas-uul noqoto ma caruur baynuna cidi ka mas-uul tahay markaa oo umamka caalamka iyo dunidaynu u yeedhaynaa haddaynan qaan gaadhaynin waa lagu gumaysanayaa lagaa mas-uul noqon maayo ilaahay ha loo toobad keeno oo dembi dhaafa la weydiisto الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. قال تعالى في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها الأحبة، waxyaabaa ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamayo ee degenaanshiyuhu ku yimaado waxaa ka mid ah istiqraarka siyaasiga ah, ummadi inay kala dambayso. yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum. war inta iimaanka laga helayow alle iyo rasuulkiiba ateeca, inta talada idin haysana ateeca. bini aadamka tale looma dhiibo haddii aanu taaco yeelanaynin. maamul aan taaco lahaynina dunida kama jiro. dowladaha reer galbeed waxyaabahay ku guulaysteen waxaa ka mid a waxay aqbaleen maamul kastoo ay samaystaan inay taaco ula yimaadaan, hadduu yahay ku dowladeed, hadduu yahay ku shirkadeed, hadduu yahay ku ka hooseeya. hal meela unbay gafeen oo maamulkeeda u diideen inuu madax yeesho, meeshaasna way ka burbureen. galbeedka meesha qura aan maamul lahayn waa guriga. islaantii odaygu waa sibayin, midna ka kale ma maamulo. guriguna wuu baaba'ay, waayo maamul baanu lahayn, kala dambayn ma leh. nolosha inta kale way garteen inay kala dambayn u yeelaan, taasee uma yeelin. ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa nolosha oo dham inay kala dambayn yeelato. hadday madaxdu qaldanto ama waddada la hayaa aanay sax noqonin, ilaahay wuxuu leeyay: fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاrasuul. war haddaad murantaan oo wax isku qabataanna isdila lama odhanin ee ilaahay iyo rasuulkiisu waxay idin sheegayaan usoo noqdaa la yidhi. kaasi ha noqdo waxa idin kala saara haddaa alle iyo rasuul rumaysantiin. idan wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam axaadiis tiro badan in waliyulamrigu ama cidda wax maamushaa inay taaco leedahay. waxaa kaloo uu tilmaamayaa ammaana inay tahay isna uu ka soo baxo. waxaa kaloo nabigu tilmaamayaa cid aan ammaanadaa qaadi karinna inaan loo dhiibin. soomaalidu waxay caan ku tahay kay adhiga kala quusataabay geela u dirataa bay idhaahdaan. reerku kuu ka quustaabaa xagga maamulka loo diraa, waxaana la doonayaa in la guulaysto. midaanadaadba waxaaga u dhiibteen baad leedahay waxa ummadda ha loo dhiibo. caaqilka iyo suldaanka iyo odaygu kuwaanu isagu xoolihiisa gaarkaa ku aamineen uu yidhaaho ummadda ilaahay waxay leedaho dhan ha lagu aamino, waa dulmi kale. suurtagalna maaha inay dhacdo. bal isagoo daacada oo cibaado badan ayuu hadduu karti darayay aan loo dhiibayn ama haddaanu maamulka aqoon. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii rag ka mid a oo uu ku tilmaamayay inuu ninka ugu hadal cad uu yahay abidar, ayuu nabigu ku yidhi: adigu daciif baa tahay, iska daa maamulka. laa ta'muranna cala اثnayn. laba ha u talinin buu nabigu yidhi, mid ka badan daaye, laba qof. idan haddii la waayo ummaddu cidday dooranaysa, hadday noqon weydo ciddii ku qumanayd, iyana waa cadamu listiqraar. deganaanshiyaha waa la waayaya. waxaa kaloo deganaanshiyaha la waayayaa cidda maamulka haysaa hadday cadaaladda ka tagto, xukunka cadaaladiisa, dhaqaalaha cadaaladiisa, alcadaala fi tawsiic, ummadda inay si siman wax u siiso. haddii maalin baynu idhaahno waa maalintayadii oo la yidhaha maalinba reer ha boobo, dabeetana reerkaasi gar iyo gardarraba uu difaaca ugu jiro ninkaasi inuu meesha fadhiyo, waayo waa xilladoodii. mar bay rabaan iyaguna inay meesha boobaan. hadday taa tahayna guulaysan mayno, istiqraarna jiri maayo. laakiin wuxuu istiqraar jirayaa: in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurba wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagyi yacidukum lacallakum tadakaruun. waxa ilaahay nagu waaninaya haddaynu aqballo. akhiiran waxaan ku gebagabaynayaa muqawamaadka waaweyn waxaa ka mid ah inta wax qortee iclaamka ku jirtaana inay ilaahay ka baqato. iclaamku waa waxyaabaha ummadaha roga, beentan badan ee la faafinayo, warkan aan la hubin ee la akhrinayo, waa waxa dadka dabagediya.
إعلامك هل تسالان كاسي محسمين كره نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وأمين من في السماوات وفي الأرضية الصادق الأمين قال لمدي أمام مرتان دينتك سودقين لغوية قاني إنه الصادق الأمين هي قبل البعثة إيوه أنت وحيك سودقين بعانكوها أيا قريش وحي كتشتي إني ورك فافيان ورك كفافين ينوى محي وإنه نموالين يهي dadka kii u caqli badnaa ee ilaahayba doortay ee bashar oo dhan inta rabbi eegay allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata uu dad oo dhan ka doortay ee haddana tahire qalbigiisa jeexaya nadiifiyey ee haddana waxyi ku soo dejiyey ee jidka quman ilaahay u tilmaamay ku tilmaamay basharka ka u khayr badan inuu yahay ayaa miidiyuhu wuxuu go'aansaday in dadka loo sheego inuu waalan yahay dabeetana dacaayadaasay faafiyeen صحابي الضمام لا يراه وحليه مقالة صوغ قلي دبتنا سيدي ورك اللي يقول ده هريرات ضدك مقالة ما كجاي من يوم بالله شجعني وعلم بمقالة الشوقة وضدك سحره يأخذ ضوخينا يسكيل عليه هذا ضدك نجا تركي يوجي مقالة صوغ قلي يقول سي وركي يقول دين أيان سيربو يبركي الدنباي سيربو ورملا نكن وحنا وصنا ياي بل ما يسكت دايدين الدويسو نبي محمد ويما وحلي عليه الصلاة والسلام إلى رسول كيسي أيوه حكولي هاي وروح حوجا بندتك كتفا مدح اللوجت شريه ما كتفا وحوجا يعني وح الرميسيين والين هاي أو بهين وحلو كتفه دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام مركز الله الله مركز كدب بوجا دينا نونيكا وحنكو الله يعني والنا هاي أو السلام حنقدر ليه دي النبي محمد لو انت دادو شرا لوodhan karo wuu waalayo dad laga dhaadhicin karo inteena kalena inaan waalanay waa la inaga dhaadhicin karaa islaamku marka imma inuu mufsid yahay oo dadka fasahaadiyo iyo inuu khayr ka shaqeynayo oo amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar oo khayr sheegayo waxaan soo sheegay oo dhan iyo kuwa kaleba quraanku in badan buu ka waramaya wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin muqawwamat al-amn wal istiqrar waxyaabaha keensada in nabad iyo deganaanshiyo la helo haddaynu muqawamaadka diidnana inaynu ilaahay kitaabkiisa raacno isku xukunno nabad heli mayno waxaynu helaynaa waa labada dhan uun inaynu kala dooranno kolba kaynu ku dhacayno labada dhan uun inaynu kala dooranno saacadna inaynu fawdada joogno iyo isdilka iyo boobka iyo dhaca saacadna inaynu joogno maxay mid dictator ah oo markaa dadka tumo oo dhib u geysta labada taraf un bayna abi taagnaanayna doorashadeennuna labadaas un bay joogtaa waxa qudhay aynu qumanaan karnaa haddaynu aqballo ilaahay kitaabkiisa inaynu raacno haddaynu taa aqballo dad badan oo dadkeenna ka mid ah aaminsan haddaynu kitaabka raacno waa lumaynaa haddaynu kitaabka raacno gaalada ayna maagaysaa armaaba la guulaysan waaya shaka ku jira كتاب ورار ما ينقول يسوينا إذن مركا هداي تاسي تمادنا دي إيمان كنا دب لوغو نقونيا العقيدة دي نصحمة هي وحين الرميسان هي تاسبا إيمان إيسا هداي نوحي قال لي نسود وهو الخبير العليم أحكم الحاكمين وأن سوء قونتي سوح لمدى إلهي أنو تشيرين خبرتي سوح لمدى أنا يتشيرين نحرستي سوح لمدى أنا يتشيرين حكمتي سوح لمدى أنا يتشيرين هداي نسيغا كو كالسونان وينو ما وحين كو كالسونان إنا أفر قف وإنت إنو مالو ساراي إنو لهنا وخبرتي قلباتك كتيمي وحبين وقريان يغير هانورين بني آدم كوفرسو رب السماوات أي واحد كدور ريسا قد بني آدم ميل فريسيو اللي يدي وحقرا مهما كانوا وذا دي ومن واحد دونان هالنقضان وذا هي السلطان يكون دون هالنقضان ورما بني آدم بعد الله إننا عندك إسهات كشك السنتهي كبني آدم كوينو كفي عينك ربك ربنا وحكوا لي ور كتابا كوسو دتي الراع رسول هداي دينتي مادو وآيات كي قايدين